فرحية مهدي عبد الله هي ولالكد كيرو شنع شكور كسب بحي صلاة التراويح ذا أيها يجو كجود بالربع هل كان كجوريوتين فرحية ولالكد كيرو حلقة سكلا صب بحي صلاة التراويح ذا أيها وحوناش يغين ولالكد كتير فرحية هل كان استاج سي وقت تشاب صور ربك بيه هل كاس حلقة سمري إنه بيها سين بيه حوق ليهين بيير إسلام مركزنا فرحية مركي هل كان سوي استاجتي سكود دري بيه تشابسو biyaha ayaa qaaday oo sidaas ayayna ku geeriyootay budaya Samatar Maxamed Farxiye ayaydeedo la hadashay warbaahinta deegaanka ayaa nooga warbixisay xaaladda qoysku haatan ku sugan yahay inantaydu maqrib baa galay salaadkii baa gaaray waxay qaadatay labada haleeb waxalkii ahsaan buusihii ah waan u soo noqon bay tiri cashada waan u soo noqon way tagtay ilaa taraawiixdii dambana way tukatay joog baa la yiri cirbaada ay waxa ay walaalkay baa iga hor imanaya ma had baa u tagay way isa soo raaceen sida kolkii raadka loo soo saaray biyihiina waa lagu dhacay meel fudud baa ilaahay isaga ku joojiyadana mawjadii un baa alla mariyay inankii oo sidaa leh ayaa yimid warkeedaba inankii yaa yiri farxiyaan waayay isagii waxa lagu duubay bustayaal warka kolkii laga helay magaalada baa u dhaqaaqday xagee meedkeeda la soo helay waxa laga soo helay toga hoosay Daymacad Sheekh Cali Guure wixii Daymacad meesha la yiraahdo yaa laga soo helay wiilashiina waa joogan anigii waa ikan iyada iyo ilaahay mooyee niman eeganaynay kooy saaka dawladan askarahan yar qabalaha ii gasho iyo kooy meel kale ii gashaba iyada uun baa wax ka sugaynay saaka hadii alla ku dasaakana cidladaasay walaac nagu tirid cidladaasay wax nagu siisay haday telefoon loo iibiyaa haday saaka jamaacada ay gala ahayd haday soo dhiganayeen habeen qoy hooyadii aabbood goda dhimatay habeen kaliya marka maxaad ka codsanay dawladda deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida waxaan ka codsan lahaa wixii kashkiisu karaamado ee ilaahay iigu soo rogo oo iiga naxiyo inay gacan qabtaan inay inama yar way iga kala yaacayaan ee gacan qabtaan iyaga oo wixii ay soo dhigatay ay u soo dhigtay ku rafaadayna gacanta ku haya iyaga oo bartanka iga kala yaacin ayaan ka codsaday waxay ii heli karayaan الله naxariistay Farxiye Mahdi Cabdullah ayaa ahayd gabadhan yar oo korisa 5 caruur agoon iyo rajooyin ka dhinteen aabaheed iyo hooyadeed kal hore ayuuna Farxiye walaalkeed ku geeriyooday tahriibta Liibiya haatan waxa xaafada ku soo haray Farxiye ayadoo waayeela Sahra Siman SRTV jigjiga